nabadu waa furaha nolosha ee bini'aadamka taasoo muhiim u ah dal walba haddaba Somaliland waxay ka mid tahay wadamada haysta nabadgelyada haddaba waxaan wax ka weydiinay dadweynaha reer Somaliland qiimaha ay nabadu u leedahay waana kuwan ayagoo arimahaasi ka hadlay reyn adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Mustafa Saalax Axmed taa ka hadlo mowduuca aad weydiisay qiimaha nabadu leedahay Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaan nabad jirin oo lama jirto nabadba naasna nuuga leh ka nabadu qiimo weyn bay leedahay in la wada ilaashadaana waa muhiim bulshada Somaliland waxa leeyahay nabadda aynu ilaashano waxa aynu haysanaa adduunka ka iibina waa nabadan wada ilaashano qof waliba alkiisa inuu ciisa nabadda ka ilaaliyo dadkan shaqaqooyinkii wax wada ee jabhada iyo wax ku dhawaaqayana xilli xukuumaddu wada hadal arrinka ku dhamayso waxay tabanayaan ha eegto ugu horeyn adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Mustafa Cilmi Maxamed Mustafa Cilmi Maxamed way magacaygu assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan u salaamayaa TV-gan cusub waana soo dhaweynayaa barnaamijkan cusub ee uu shacabka dhex qaadayo ee nabadda uu ka warramayo waa TV-gii ugu horeeyay aanu aragnay dadka weydiinaya qiimaha ay nabaddu leedahay TV-yada kale waxay ka shaqeeyaan xasilooni darro qayb ka midi iyo nabadgelyo darro iyo kicin shacab iyo isku dir baabaleeshim oo ay ka dhaxdayaan interest yar oo dhow iyagu laakiinse TV-gan waxa weeye waa TV barnaamijkiisii ugu horeeyay uu ku soo duubay qiimaha nabaddu ay leedahay nabaddu waa shay qaali ah oo muhiim ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin raggiina yarar ee dhalinyarada ay wariyaasha ee ka shaqeynaya arrinkan shacabkana ra'yigooda ima ka qaadaan aad baa u mahadsantihiin goobtana waa goobtii diyaaradda oo ummadda oo dhan bay kulmisaa ummadda Hargeysa joogto oo dhan bay kulmisaa goobtan markaan ku soo noqdo mowduucayga hadalka waan ku dheeraaday weeyga kala baahay markaan ku soo noqdo mowduuca ay weydiiseen ee qiimaha ay nabaddu leedahay horta marka koobaad asaaska nolosha waa kaalinta labaad nabaddu waxa weeye in la helo biyo caafimaad la helo nabad la helo saddexdaa qodob ayay ka mid tahay nabadda qofku nabaddu kama noola dadka laakiinse dadka nabaddu iyaga ku nool nabadgelyo la'aan waxbana ma qabsoomayaan waxna ma kala soconayaan waxna ma dhaqaaqayaan hadday ganacsi noqoto hadday noqoto arrimo siyaasadeed hadday noqoto arrimo amni waxa la wax dhaqaaqaya ma jiraan marka nabadgelyadu waa dhidibada ka mid ah nolosha bini'aadanka ama noolaha oo dhan ah haddii nabadgelyo darro jirto inagu maynaan wada hadalleen hadeerto kan tagsiila ahina ma shaqaysteen dadkan suuqa marayaan ma socdeen waxna ma kala socdeen nabadgelyada maxaa waaba hadaba marba maamulka jira ayaa nabadgelyada hagaajiya ama xasilooni darro ka shaqeeya maamulkeena maanta jira assalaamu calaykum maamulkeena maanta jira ee madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayo waxa weeye waa maamul ku suntan nabadgelyo iyo horumar iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad iyo diin iyo dhaqan intaba ku suntan waa maamul dayasho mudan xusbiyadeena mucaaradkina aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyaga laftirkoodu oo sidaa la mida ayaa labada hogaamiye labada xusbiba nabadgelyada uga shaqeeyaan iyo xasiloonida iyo isu socodka dadka iyo dadkaan la kala qoobqoobin aana cidna kala qoobqoobin markaa nabadgelyadu waa shay aad u muhiima tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadayaa inta halkan taaganima taagnaateen haddii nabadgelyo darro jirto adiguna imaad waraysateen aniguna kuma warrameen ugu horeyn ku soo dhaw telefishinka caalamiga Xurriyo adoo magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantiin TV-ga Xurriyo magacaygu waa Yaasiin waan idinka mahad celinayaa inaad isku daydeen inaad wax ka ogaataan awraahda dadweynaha wax ka qabaan ama qiimaha nabadda horta waxa la yidhi nabaddu adigu kuma noolide iyadu kuma noolaada ku nool nabaddu waa muhiim waa wax loo baahan yahay waa waxaynu ku naaloonayno
26 sano waxaynu ku soo naaloonayna laakiin maanta waxa taala wax caqabad ku ah nabadda cadaalad darrada waddanka ka jirta cadaalad darrada marka waddanka laga saaray waddanku cadaalad noqdo bay nabaddu imanaysaa waxyaabaha yar ay baxayaan dhibaatada masuulka waxyaabaha laga sheekaynayo laakiin nabadda waxa ka horeyso yaan waxba laga leexleexanay cadaalad waddanka marka cadaalad la helo loo sinaado waddan la wada leeyahay noqdo bay nabad imanaysaa Soomaaliland la wada leeyahay markaas la heli laakiin waddan dhinac ka raran waxaan u maleynayaa inta yar la waayo waad maasantii magaca ku bilaabay kusoo dhaw telefishinka xariga bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasan tahay magacaygu waa Shaafici Cabdullaahi Maxamed waana ku dhawahay barnaamijkooda waxaan ka hadlaynaa qiimaha ay nabaddu leedahay nabad horta waa nabad marka ugu horeysa in fasalno horta nabadi waa nimcadaana ilaahun baa bixiya waa nimcooyinka ugu qaalisan ee bilaadanka uu ilaahay siiyo nimcada ugu qaalisan bay kamid tahay nabadu meel nabad laga waayay dad waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa ku maamaadaa adduun nabad laga waayay waa akhrijan laga waayay kawdhe nabadana dad qofkii waayay un baa garanaya wax kastana qiimihiisa waxaad garanaysaa marka aad weydo waxaasi ka maqan yahay ayaad garanaysaa maanta nabad baynu haysanaa qiimaheedii ma garanayno maxaa dhahday mana dareensanin laakiin waxaanu garanaynaa maanta markii halkaas oolasho xagga noolasho ayaan maanta nabadda qiimaheeda garanayna waxaana wax laga weydiiyaa waxa la balaayo kasto qofkii soo marba wax laga weydiiyaa nin balaayo ku soo koray oo dab ku soo koray oo olol ku soo koray ayaan baan nabad laga wareysan karaa qof maanta nabad ku dhashay ku barbaaray oo ku dhaqmo ku caqliyeystay oo ku dhashay maanta nabad qiimaheeda ma garanayo run baa wanaagsan laakiin nabad qiimaha leedahay waxa garanaya ninkii soo maray nabad laantu waxay tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin kulaay assalaamu calaykum dadka population-ka jooga meesha war taageerayaashaydu war ma wadaade mid waxbaan kuu sheegayaa odayaasheenii dadkeennii gebiyuu baa ka wada hadhay dalkii yuubay ku wareerinayaan anaa ree hebiya anaa jaamaca iyaan ku waalanaynaa nabadgelyadaan haysanana waan ku xamdiilaanahay xamdi waan ku niqilaanahay roobka ilaahayna siiyeen nimcada ilaahayna siiyeen xamdi kulaanahay waxa weeye haddii dalka yuuda laga daayo wax walba ku hagaagayaan yuubayna dhammaysay iyo annagu waxbaan saluugaynaa iyo waxbaanu dhimaynaa wadnaana qabatay ugu horreyn aad magaca ku bilaabay kusoo dhaw telefishinka xariga horta aad iyo aad baad mahadsantihiin waan dhowahay adigina inanka kameramaankaaba waxaan leeyahay xurriya TV waad mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadar Maxamed Xasan waxaan sheegay maanta ka hadlayaa nabadgelyadu waa shay muhiim ah oo aad wadan kasta ugu baahan yahay maanta waad ogtiin wadamada caalamka waxa ka socda Syria waxa ka socda Muqdisho waxa ka socda maanta hadayna nabad jirin maanta amnigeenaas maanta qurux badan ay ku noolnahay iyo dhulka fiican ay ku noolnahay maanta muu jireen waad ogtiin waxaan ku maanta Muqdisho waxa ka socda yar ilaa weyn siyaasadku ku jira ilaa kan siyaasad ku jira inta wada waxaan ku dhisaas uu nin walba wadnaha farta uga haya waxaan idin sheegayaa nabadda horta wax loo dhigaa ma jiro maanta niyo hooyooyinkeena qurux badan leh iyo ubadka qurux badan leh iyo abayaasha qurux badan leh nolosha qurux badan leh ku nool waxa soo dhan horta waxa loogu mahad celinayaa waa ilaahay baa taana mahadle waxaan idin sheegayaa warniyo nabadgelyada ilaashada bulsho ahaan iyo ummad ahaan reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay nabadgelyadu wax loo dhigaa ma jirto ilaaliya nabadgelyo assalaamu calaykum ugu horreyn aad magaca ku bilaabay kusoo dhaw telefishinka xariga waan dhowahay magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Maxamed ka baxay jaamacadda Hargeysa markaan soo ururiyo nabadi waa wax qaaliya oo aan la heli karin ninka haystaana uu maanta dareemayo ku naaloonayo ku seexanayo ku soo toosayo waxaan ku joognaa halkan waa nabaduna waxa weeye shayga kaliya ee adduunka la ilaashado nabadana dadka sameeya dawlad gacanta kuma hayso dadka ayaa sameeysta ilaahay hadduu ku qoray nabadood ku noolaan inta nolosha haddii soo ururiyo markaan soo ururiyo nabad baa naasna luuga leh wax lagu bartaa lagu horumaraa meel lagu gaadhaa nabad waa hanti ma guurtaa haddii ilaahay ku barakeeyo waxaan ku soo ururin lahaa oo aan halkan uga ducayn lahaa dalalkan carabta ee burburaya ee maalin walba intaas soo qof ka qaxayaan ilaahay ha ka samad saaro inaga ilaahay nabadda haynoo ballaadhiyo haynoo ila sii siyaadiyo nabad iyo nolol insha Allah waa Axmed Maxamed Cumar Axmed Dayax telefishinka caalamiga xuriyo magaalada Hargeysa